guddiga beelaha Garxajis uu hogaaminaya Suldaan Cismaan Suldaan Cali Suldaan Madar oo maanta warbaahinta kula hadlay Hotel Cafe ee magaalada Burco ayaa ka hadlay dhalinyaro shaqaaqa ka geystay gobolka Togdheer kadib markii dabaaldeg magaalada Burco loogu sameeyay koobka gobolka Daadmareedh taasoo ay sameeyeen taageerayaasha gobolka Daadmareedh ee ku nool gobolka Togdheer kuwaasoo guddiga raaligelin ay ka bixiyeen dhibaatadii ay geysteen dhalinyaradaasi iyagoo sidoo kalena ka warbixiyay safar ay ugu soo baxeen gobolada bariga Somaliland sidoo kalena ka warbixiyay safar ay ugu soo baxeen oo ay u kuurgalayeen xaaladda abaareed ee ka jirta deegaamada ay soo mareen kuwaas oo sheegay inaanay ka suurtagelaynin diiwaangelini ciyaarihii gobolada ee dhacay ay ka sababeen Burco gobolada ay deegaanka aynu wadanay waxaanu ka xaal marinaynaa mushkiladii iyo dhibtii ka gaadhay farxadda waxaanu leenahay idinmay qabanayn idinkoo gobolkii ku faraxsan inay Togdheer u hesho walaalayaal markaynu wax farxayno iyo marka aynu cadhaysanayba haddii Burco ay shiidoon dhibteeday leedahay odayaasha gobolka waxaanu leenahay arrintaasi ma qabato waxaanu leenahay xaal golo joogaan ka bixin iyadoo ay rabshada hore ka dhacday oo dad badan waxyeello ka soo gaadhay haddii koobka la keenana mid ka xun bay noqonaysaa haddii koobka meel la geenayna gobolkii uu kulaha la geeyo laakiin Burco inaan la keenin gobolkana dhib weyn runtii iyo dareen weyn ka abuurtay arinta cidii wax dhibsatay waa ka raali gelinaynaa ee khasaare kaga yimi waxaanu soo jeedinaynaa gobolka Daadmareedh ee qaaday koobka in gobolkii qaadayna la geeyo koobka wixii farxada iyo dabaaldegana gobolka xaq u leh in gobolka maxay laga qayb galo dad isku wax u dabaaldegayo isku wax ku faraxsan oo hadana iyaga isweerara khaladka iyo weerarkaana lama wada lahayna dhinacu ka yimi waxa leenahay dhinaca uu ku dhacay marka hore waxa sidin ma qabtaan waanu cambaaraynaa waana ka xunnahay raaligelina waanu ka bixinaynaa hanti badan baa burburtay inay waxyaabaha noocaas had iyo jeer sameeyaan magaalada ka sameeyaan waxaan maanta u sheegayaa inaan dib loogu dul qaadan doonin oo fariinta aan u diraya taageerayaasha gobolka Daadmareedh meel kasta ay joogaan waa ilmaha ismuujinaya hayna biyadhiijinina cid gaar u diidaysa ma jirto cid gaar u diidi kartaana ma jirto wuxuu baa leeyahay dhinaca nabadgelyada gobolka Daadmareedhna waxaan leedahay hadaa guul gaadheen guushiinu inay gunnimo iyo colaad iyo rabshad iyo waxyeello umadeed idin soo jiido waa nasiib daro cidii khasaare gaadhay hadday qurahaan tahay hadday dhinac ahaan tahayba xaal iyo boolajiis ee diiwaangelinta iyo kaar qaadashada iyo u diyaargarowga dadkii inaanu isdhiganin shar u tooghay qayr waxba kaama guro ama guura ama oola ama magaalo ku jira qof walowba iyo cid walayba iyo ardaa walayba gobolka Togdheer guud ahaan iyo gobolada kaleba u diyaar garooba xaaliya borjees baan ka bixinaa waxyeeladaas ka dhalatay farxadii iyo dabaaldegii koobkaas ta dambe ee la leeyahay koobka lagu keenayana annaga waxay noola muuqataa inaan koobka la keenin gobolka Togdheer maxaa yeelay tii hore waxyeelada ka timi ayaanu ka cabsi qabnaa ta dambana inay ka dhibaato badato markaas si aan nabadgelyada iyo walaalnimada gobolka wax loo yeelin waxaanu leenahay yaan la keenin koobka waxa ka jira dookraac wax la yiraahdo dayrta ayaa gobolkan seejisay dabadeedna dookraac ayaa la dookraacay bulshadii aan la kulanay in badan oo kamid waxay aaminsan yihiin in gobolka dib loogu dhigo doorashada sababaha abaar in dookraac awgi iyo deyrwaaga arrinta diiwaangelinta in dib loogu dhigo taana waxaanu leenahay kulli bulshadaanu kala midnahay waa lugna ugu joognuguna dirir waxaanu leenahay dadweynaha yaana la isdhiganin codkooda in la tixgeliyana waa soo jeedinaynaa diiwaangelinta iyo kaar qaadashadeeda iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa arrinkaasuna si wacan buu dhacay dadka waa ka wacyigelinay shirar badanna waa ka qabanay xaaladaha gobolka ka jirana waa la taabto si waayeelku ay u taabteen daaqraac baa jira iyadana in sideeda loo eegaa baan runtii gobolku qabaa oo muxuu ahaa miisaan la saaro inay suura galayso waqtiga la sameeyay iyo inaanay suura galayn xaaladda darteed waa talo sideeda loo eegi doono
dadkana waxaanu sheegaynaa marka hore horta inay diyaar garoobaan oo ay u diyaar garoobaan inay kaararkana qaataan oo isdiiwaan geliyaan marka dambana doorashada ay ka qayb qaataan meel kastaba ha joogeen inaan isdabayaac isla daata oo aan faa'iido yeelan iyo cod qasaarooban inay ka waantoobaan maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga badda cas burco ma og tahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'idi karto ma og tahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwavyo tvyo iyo moobilo dhammaan shirkadda samsung ah account lacagi ku jirto oo baanka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hodheelada damal iyo weliba 10 gaadhi oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaadhayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111 hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom